marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahadle mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa maayirka degmada Buuhoodle Khadiija Axmed Aadan oo markii ugu horeysay qabatay tartanka degmooyinka gobolka Buuhoodle ay ku tartamayaan 4 degmo maanta maraya maalintii 6aad waxay sharaf weyn u tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sharaf weyn u tahay dhammaan shacbi weynaha reer Buuhoodle waxay sharaf weyn u tahay dhammaan dhalinyarada ku nool degmooyinka way ciyaaro kaliya maaha isbarasho iyo is-ogaasho taasa ka muhiimsan in dad meel la iskugu keeno marka anagoo xiriirka kubadda cagta Soomaaliland iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaarahaba maama Khadiija waan u mahadnaqanaa taana ku dhamaanayso insha Allah tartamo dambe oo joogta oo kuwan ka qurux badan baan insha Allah rajaynaynaa inay noo qabsoomaan waxaana leeyahay dhammaan degmooyinka dhalinyaradiisa iyo cid kastaba in la garab istaago qofka wanaaga wada qofka horumarka wada in bulshada meel isku keenana way adag tahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si hooyo caruur ay dhashay ka yeeli lahayd ka yeeshay dhalinyarada iyadoo markasta dul joogta oo xaaladooda og aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo isna u mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Woodwood oo isna si fiican u soo dhaweeyay dhalinyarada maadaama marti galiyay isagoo koobka degmooyinka xiriirka kubadda cagta ayaa tartankan fulinaya sharciga xiriirka kubadda cagta ayaa lagu wadayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha siyaasadeeda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan inuu garab taaganahay waa maalintii 6aad si habsami socod noogu socdaa waxaan rajaynaynaa inta hadhay inuu insha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si nabadgeliya noogu dhameyn doono waxa hargardaama maanu arag taasina waxa ku tusaysaa horumarkii in gobolkii iyo dhammaan degmadii Woodwood horumar iyo ay u socdaan meel inay gaaraan marka anaguna waan soo dhaweynaynaa waxaan insha Allah rajaynaynaa inuu koobkani joogto noqdo waxaan ku soo dhaweynayaa maama Khadiija marka labaad waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa xogayaha xiriirka kubadda cagta ee nagula sugan halkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa saakumullahu jasabaan leeyahay u dhabar adeegay aad aragtaan inta uu nala joogo aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda oo dhan ugu horeeyay wasiirku ciyaaraha iyo isboortiga iyaguna qayb libaax leh nagala qaatay waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo iyaduna mar kasta nala barbar taagan dhiirigelintayada iyo maxay tahay la shaqayntayada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa maanta oo 6 ay noo tahay isboortiga isdhexgalka bulshada dhalinyaradii ciyaarta u socoto si qurux badan ugu socoto nabadgeliye leh ma sha Allah wax Ilaahay loogu mahadnaqo isdhexgalka bulshada iyo maxay tahay nabadgeliyada iyo arrimaha bulshada waxaanu aanu ka shaqeynaa mar walba si maxay tahay dadku isu dhexgalo si la isu barto si dhalinyaradu walaalo u noqoto u midowdo wixii maxay tahay xumaana looga gudbo baan mar kasta u taagana wareegga saddexaad baa la marayaa maanta waxa ciyaaraya degmada Qorolugud iyo degmada Woodwood si wanaagsan bay ciyaartooda noogu socotaa ilaahay baana mahad iska leh oo si wanaagsan noo amniga iyo wax walba ay nagu sugan yihiin halkan marka waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Woodwood shacabka reer Woodwood oo soo dhaweynta sameeyay oo marti loo ahaa marka koobaad munaanta koobaad iyaga leh kale labaad waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xiriirka garsoorka waxaan kaloo aad u mahadcelinayaa golaha deegaanka gobolka Buuhoodle oo aad iyo aad uga qayb qaatay gudoomiyaha degmada Woodwood oo marti loo ahaa isaguna hawl kuma harin waxaan oo dhan waxaan isku keenay maayarka caasimadda Khadiija Axmed Aadan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa hadda ka horna sheego dhalinta garab taagan nasri baa horta Ilaahay noo soo diray qof dumar baa noo timid oo noo soo baxday oo collection noo sameysay xiriirin noo sameysay haddana tartanka ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada iyo nooc walba ay tahay hadda ka horna ay ballan qaaday xitaa orodadiina ay qaban doonto haddii Allahu idmo nimba suu socdo talaabsaday maalinba stage bay tiri ayaan qaadayaa diidanayadina hadda waan waragnaa iyo wax qabadkeedii intaas oo degmo isku keentay anigu judgment-ka uun baan dhiibay laakiin waxaan dhalinyarada ka dambeysay aad iyo aad baan gabadha ugu mahadcelinaynaa waxaan maanta gobolka Buuhoodle aan uga dhignana ma jirtaba waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo safar dheer la soo galay oo waqti badan nagala qayb qaatay waxaan u mahadcelinayaa ciidanka mar kasta heeganka taagan waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada golaha deegaanka inkastoo aan qaarkood aragba xildhibaan Cabdinaasir Sulubiyo iyo maayarka xigeenka gobolka Buuhoodle Mustafa iyo waa dadka aad nagala qayb qaatay ma wada oran karayo xildhibaanada dhan baa hawsha ka baxay laakiin qaar baa naftooda iyo dhigooda u huray run hadii la isku sheego xaqada dhabtaana marka hawl ku haysto qofka kula talaabsado baad adiga wax ku amaanta